anagu maanta waxaan nahay dad ilaa 8 milyan lagu qiyaaso Soomaaliya oo ku dhex jira wadan 100 milyan uma baahnin shirar qabaa'il uma baahnin wixii halkan soo dhigay waa shir qabiil iyo fikir qabiil iyo iyadoo la isku urursanayo jif arintaas waan soo aragnay xanuunkeedii 7 sano u dambeysay wixii ummadda halka isha u yeelay iyada weeyaan shirka hadda aad ka hadlaysay soo lagu qabanaya shirkaas 90% dadka qabanaya dad deegaanka u dhashay ma wadamada jaarka ka yimid weeyaan hayb ahaan dadkaas la hayba oo deegaanka degan way jiraan laakiin dadka hadda shirka aad soo imanaya 90% waan xaqiijinay dad deegaanka u dhashay ma shirkaas marka anaga nama khusay deegaan ahaan shir anaga naloo qabanayo deegaankana wax ku saabsan lagu soo qaadayo uma arkaano wixii ka soo baxana wax xukuumadana khusay ma noqonayo dadkuna de wuu shiri karaa xaq buu leeyahay mar hadii la dimuqraadiyad ba jirta kama duwana shir lagu qabtay Lusaka iyo Harare iyo Johannesburg iyo muxuu ahaay Luanda iyo anywhere adduunka meeshu rabo qof ku shiri karaa looma diidi karo marka aad sabayna ku shiraan sax way xaq buu leeyahay laakiin shir deegaanka Soomaaliya khusaya shirkaasi ma hadii ay jiraan dad deegaanka ka soo jeeda oo hayb ahaan uga qayb galaya shirar noocaas oo dad wadamada jaarka ka yimid qabsanayaan waxaanu leenahay arinta ka fajignaada cawaaqib xumo keenaysa beel loo shiraa meel lama gaarsiin soo ognahay cidii marka shir aan khuseyn deegaanka ka qayb gasha deegaanka u dhalatay waxaan oran karnaa waxay maaragtay jabisay shuruucdii u yaalay qawaaniinta u yaalay deegaanka iyadoo aan fasax ka haysan xukuumadda waliba marka arintaas aan u aragnaa mustaqbalkana waxaan jecelnahay in dadyowa deegaanka ka soo jeeda ay ka shaqeeyaan midnimada iyo adkaynta fikirka qowmiga ee Soomaalida maadaama maanta Ethiopia qowmiyadooda kala duwan iyagoo kala afa iyagoo kala diina magac qowmiyad ay kulligood ku urursanayaan anaguna maanta uma taaghayno shirar dir iyo shirar daarood iyo shirar hawiye iyo shirar waxaasi uma taaghayno waxaan u baahanahay shir Soomaaliyeed inaan qabsano shir Soomaaliyeed oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed deegaanka degta dadka deegaanka u dhashay waliba ma aha kuwa u hayb sheeganaya laakiin deegaanka aan u dhalano jarka imanaya kuwaas ma shaqadooda ma ina galaana ma taana xukuumadda kulay federaalka kala hadli doona hadii la yaan qabanayna shir balaaran noocaas oo Soomaaliyeed baa dhacaya oo ka dhici doona magaalada Guday muddo aan fogeyn wixii tabashooyin jira wixii talooyin jira halkeena oran lahayn cidda deegaanka kamida saad sheegtay adigu ama dadka deegaanka ay hadiiba ay tabasho qabaan amaba ay qabaan in nidaamkii iyo xukuumadda madaxweynaha ka tahay aan sida wax wada ku qanacsanayn warbaahintiina saad sheegtay cid u adeegsanaysa cidda dowladda ku soo abarto ama maamulkaaga nidaamkaaga wixii ka qaldan u sheegto ama waxay tabanayaan buu soo gudbiso halkii la soo maraya way dadka qaar baa waxay qabaan in leeyihiin madaxweyne Mustafa cid baa ku xeeran meel loo gaadha ma jirto meel lagu gaar sidee lagu soo gaaraya taas waa laga yaabaa inay caqabad xaggan ka jiraan inkastoo maamulku iska cusbaa oo wali una maaragtay procedureski loo baahnaa iyo dadka la kulankiisa hawshiisa laga yaabo inay dhalila ka jiraan haddana ciddii ilaa intii hadda aan imid ama urur bulsho ha noqdaan ama ha noqdaan qabaa'ilo odayaal ka socda qaabilaad runtii aad ballaaran baan samayn jiray waxyaalaha hadda lagu dhaliilo waxaa ka mid qaabilada faraha badan ani xaggayga laguma dhaliilo qaabilaad la'aan in fact waxa cawdo xafiiska wasaaradaha iyo yaa wada shaqayntii ay saameysay maadaama habeenii maalin odayaal aan qaabilayno hadii ay jirto qaabila inta ka badan cid u baahan baabku u furan yahay laakiin de shaqooyinku maadaama ay badan yihiin waa laga yaabaa qofku isagoo rabo inuu ku arko weegan in laga yaabo 2 week 3 inay ku qaadato taas wax iska caadi ah wixii talooyin iyo wixii dhaliilana xaq bay dadku leeyihiin way sheegi karaan ilaacadaha kaliya ma kan deegaanka ay leedahay dawladdu ay leedahay maalgeliso SRTV ka sheegi karaan dhaliisha soo fadhiistaan loobana diido wayna sheegaan maalmo baada dadka laakiin dhaliisha sheeganaya dadka cabanaya way noqon dad deegaanka u dhashay qof aan deegaanka u dhalan oo ama Soomaaliland ka soo jeeda ama Djibouti ka soo jeeda ama Amerika ka soo jeeda meelaha uu ka soo jeedo dhaliisheeda inuu gudbiya ka fiican inuu dhaliilo maamulka ka jira deegaanka marka dadkiina Soomaalidu cid walba qabiil aan deegin deegaanka Soomaaliyeed ma jiro 37 qabiil baa deega qabiilo deegaanka naga deega oo dhulkan kale Soomaalida ama Djibouti ama meelaha kale Somaliland Soomaaliya Puntland aan deegin way jiraan laakiin qabiil xaggan meelaha deega oo xagga aan deegin ma jiro
macnaha waxaan ku leeyahay waxaa u badan qabaa'ilada Soomaalida kuwa deegaanka Soomaalida ugu badan oo dhammaan laga helaa sidaasay tahay haddana cid walba oo inay hayb sheegato oo tiraahdo maadaama reerkanu halkaa dego waxaan ka soo jeedaa halkaas sax ma marka arrimaha u baahan in la xaliyana kuwaas ah transnational identitieska qofku uu gaar ahaan dadka kaaba qabiilka ay oranayaan waxaan ka hadli karaa siyaasadda deegaanka Soomaalida maadaama aan qabiil hebel ahay oo qabiil hebelna xagga uu qayb ka dego siyaasaddaas ma soconayso mana ogolin وانا arrimaha hadda aad muddo in fahan darro badan ay ka jirto salaadiin la yaqaano oo waaweyn oo caana ama ugaasiyo la yaqaano oo siyaasadaha dalalka jaarka qayb ka yaa maanta asaba jooga oo waxaan ka hadlaynaa xaaladda siyaasadeed deegaanka Soomaalida waa khalad taas arrimahaas in lagu antubaan soo jeedin markaa